nolosha aadanaha waxaa saldhig u ah deegaanka. Deegaanka ayaa go'aamiya habka ay noqonayso nolosha dadka. Deegaanka waxyaabaha ugu muhiimsan waa dhirta. Dhirtu waxay halbowle u tahay nolosha aadanaha. Iyada ayaa laga helaa oksijiinta dabiiciga aan ku neefsano. Xoolaha aan cunno hilibkooda ayaga ayay daaqaan. Waxyaabo kale oo muhiim u ah nolosheena ayay samaysaa. Xaalufinta dhirta waxay Soomaaliya dhaxal siisay abaaro isdaba joog ah, fatahaado tiro badan, falxumo ku timid dhulka iyo falxumo ku timid noloshii miyiga ee Soomaalida. Xaalufinta dhirta waxay sabab u noqotaa kuleyl daran iyo inuu yaraado roobka. Barnaamijka Qaramada Midoobay ee la dagaalanka saxaraha ayaa lagu sheegay in Soomaaliya laga bilaabo 2011 laga jaray ku dhawaad 8 milyan oo geedo ah, iyadoo laga dhigay dhuxul. Waana arrin halis ku ah deegaanka iyo nolosha aadanaha. Bogga Global Forest Watch oo lagu daabaco waxyaabaha la xiriira deegaanka ayaa sheegay intii u dhaxaysay 2001 ilaa 2021 in Soomaaliya laga jaray geedo ku fadhiya 4,000 oo hektar, taasoo la mid ah 4 milyan oo mitir oo square ah. Labada gobol ee geedaha ugu badan laga jaray waa Jubbooyinka. Dhinaca kale, keymaha oo muhiim ah ayaa dhulka waxay ka yihiin 30%. Wadamada ayaana aad u ilaalsada keymahooda iyagoo ka ilaaliya in la jaro maadaama laga helo oksijiinta asaaska u ah bini'aadamku ku nool yahay. Sida ku daawacan xogta Qaramada Midoobay ka hor 1991, dhulka Soomaaliya waxaa keymo ahaa 13%, laakiin sanadkii 2010 waxaa dhulka Soomaaliya keymo ahaa 10%. Waxaan hoos u dhacaa sababay geedaha la jaray. Maanta Soomaalidu waxay jaraysaa dhirteeda, laakiin wadamo saxaro ah sida Algeria ayaa bilyanis ku bixiyay si loo abuuri lahaa geedo si deegaankoodu u noqdo mid lagu noolaan karo. Si aan u badbaadin nolosha deegaankeena iyo midkeena, ha ka qayb qaadan jarista geedaha ee mid cusub beer si aad dhaxal fiican ooga tagto deegaanka iyo dadka ka dambeeya.